kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee sahan oo toddobaadkiiba mar goorahan oo kale aad ka daawataan Muqdisho Cable. barnaamijkeena sahan ayaan kugu soo gudbinaa sahano kala duwan oo arrimaha bulshada la xiriira. toddobaadkan barnaamijkeena sahan waxaa inoogu martay oo nagala qayb gali doona wiil dhalinyaro oo qoray buug horey loogu qoray afka Ingiriisiga isla markaana uu u tarjumay kuna bedelay afka Soomaaliga. buugaas oo la yiraahdo Practice and Progress oo ugu talagalay xoojinta dhanka luqadda iyo in ay ka faa'iideystaan dadka Soomaaliyeed. qoraaga buugani waa Maxamed Ciise Maxamuud oo barnaamijka iyagu martay. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo ugu horeyn barnaamijkeena sahan maxamed ku soo dhawo barnaamijka iyo Muqdisho Cable. bismillaahir rahmaanir rahiim. markii ugu horreysay aad baan u mahadsan tahay Filsan ku mahad celinaya qaabka igu soo dhaweysay barnaamijka sahan. marka labaad aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta halkan ku soo bandhigo buug aan ku turjumay afka Soomaaliga oo af Ingiriis hore ugu qoray Practice and Progress. aad baan u mahadsan tahay waa dhawahay. buuggan maxaa ku dooratay inaad isugu afka Ingiriisiga ku qornaa Soomaaliga? aad baan u mahadsan tahay Filsan maadaama aan arkay in waddankeena Soomaaliya baahi badan ay ka jirto oo loo qabo afka Ingiriisiga oo jaamacadihii iyo iskoolaadkiiba ay ku baxayaan luqad af qalaad ah. anoo taa ka duulayo ayaa waxaa igu dhalatay fikrad ah inaan buugta manhajta ah oo new conceptiga ah in aan Soomaali ugu turjumo. taaba igu dhalisay tarjumida iyo bedelida buuggan marka goormay kugu dhalatay? aad baan mahadsan tahay. runtii waxay igu dhalatay turjumida iyo bedelida buugtan aadka u qiimaha badan 2014 ayay ahayd bilowgiisii oo buug raf aan ku qoray buugnood caadi ah. markaa kadib waxaa laakiin uu soo xoogaystay 2018 ilaa iyo 2019 ama waxaan dhihi karnaa bilowgii 2017 meelahaas ayuu soo xoogaystay oo fikirkaas uu hirgalay. runtii haddana waa ku haminayaa oo waxaan rabaa inaan buug fara badan inaan mustaqbalka soo saaro. taabaan ku haminayaa aad iyo marka waqtiga kaaga baxay ka waran intaad buuggan oo luqad qalaad oo Ingiriisi ku qoran inaad af Soomaali u bedesho? wallaahi horta waqtiga iiga baxay waa waqti kooban masha Allah oo muddo 5 bilood ah. waxaan bilaabay 17 bishii 9aad 2018 ilaa waxaan dhameeyay marka 17 bishii 1aad 2019 muddo adiga 5 bilood ah ayaan waday. marka waqti inta la eeg baa iga baxay. runtii juhdi fara badan oo iga baxeeno waayo qofku caawinaysa ma lahan runtii. laakiin alxamdulillah ugu dambeyntii waa ka guul gaaray waa ka miro dhaliyay. waayahay buugga maadaama uu badan yahay inta badan sheekooyin oo ay ku jiraan sheekooyinka ayaan rabnaa bal xigmadda ku jirta iyo sheekooyinkaas inaad nooga sheekayso maadaama badi buug uu sheekooyin ka sheekeynayo oo aad bedesho afka Soomaaliga aad ku qortay. sheekooyinka waliba ugu saameynta badan aan rabnaa in aan u soo qabano daawadayaasha. baraka qarsoon ciwaana tiri ama Blessing and Disguise ajira muxuu ka hadlayaa? sax Blessing and Disguise ama baraka qarsoon waa cashirka 58 inuu yahay jeclahay. xaafad la dhaho xaafad yar oo ku taalo Friendly ayaa waxaa la dhahay waxaa ku yaala geed qarsoon oo macnaha geed habaaran. geedka marka sheekada iyadoo Ingiriisi qaybtan ku qoran tahay laakiin qaybtan iyadoo Soomaaliyan ku qoray. geedka marka wuxuu noqday caan oo wargeysyada iyo idaacadaha ayaa soo tabiyay. muddo kadib geedkii marka wuxuu helay sumcad xun ayuu helay oo ah qof hadduu taabto oo kale geedkaas waxaa ku dhacayo musiibo iyo waxyaabo saas oo kale ayaa suuqa u gashay. markii dambe wadaad kaniisadda u talinayay oo fikirka la dhaho ayaa waxaa lagu dhahay geedkan naga jar. asna waa uu ka diidayo sababta u diidan wuxuu dhahay geedkan maadaama dalxiisayaal fara badan ay imaanayaan waxaan ka helnaa ayuu dhahay il oo faa'iido ay noo tahay dakhli fara badan ka helnaa ayuu dhahay. markii dambe wadaadkii dadku waxay aaminsanaayeen qofkii taabto kale inuu musiibo ku dhacayso qofkii mirihiisa cuno kale inay dhibaato ku dhacayso kale.
dadka way guranayeen magacyadoodana way ku qorayeen marka dambe waxaa dhacday in geedkii oo sheekada saasay ku dhamaatay marka sheekadan waxaan ka fahmaynaa inay tahay sheeko quraafaad ah oo sheekada dhamaadkeeda waxay leedahay qofna dhibaato kuma aysan gaarin laakiin dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu dad hore u galaaftay ama uu dhibaato gaarsiiyey marka sheekada waxaan ka fahmaynaa inay tahay quraafaad iyo waxyaabo false idea ama fikrado qaldan oo dadka iska aaminsan yihiin laakiin aan run ahayn oo myth and misconception waxa la hayaa jiro quraafaad ah saas baan ka fahmaynaa sheekada marka waa aragti qaldan oo dadku ay aamineen bilif karayaan waa sida waayahay buugan waxaa jirtay sidaan jeclahay buuga kaaga horeysay oo xitaa barnaamijyo hore aan kaaga wareysanay buugan iyo buugii ugu horeeyay marka laga soo tago ma labadaadii buug ee ugu horeeyay aad badashayba mise wax ku socda ama kala jiro oo soo saartay wallaahi horta buug hadda aan wado jirtaa oo insha Allah dhawaan asna soo saari doono oo psychology ama cilmi nafsiga oo hadda process ku jira ama ii socda waan ku haminayaa inaan fankan qoraalka iyo qalinka inaan heer ka gaaro marka hadda waxaan u maleynaa hadda waa iska ugub laakiin insha Allah waxaan gaari doonaa inaan heer ka gaaro oo meel la taaban karo inaan ka gaaro insha Allah waayahay sheekooyinka saameynta leh ee ku jiraan rabnaa inaan ku noqono oo sheeko ka mid ay leedahay she was not amused ama kuma aysan madadaalin aad baa mahadsantahay Filsanay sheekadan 63 cashirka 63 waxaa waaye nin la dhaho Jimmy Harford oo nin jilaacaan waaye Jimmy Harford nin jilaacaan waaye marka gabadhiisa ayaa maalmaha kamid ayaa waxaa lagu casuumay xaflad nin wuxuu ahaa dadka ka qosliya oo shactaroola ah gabadhiisii marka ayuu hore u watay markuu gabadhii hore u watay ayuu gabadhii meeshii ayay tageen dabeetana waxaa dhacday in khudbaddii uu si fiican u soo jeediyey oo dad ka qosliyey gabadhii marka khudbadda markuu dhameeyeyba aabaheed waxay ka codsatay inay xaafadda aadaan marka aabihii uu ka niyad jabay oo xoogaa murugo ayuu ka dareemay disappointment ayuu ka dareemay markii dambe wuxuu dhahay uu soo waday wuxuu weydiiyey marka inta riwaayadda uu jilayay inay farxday iyo in kale ay ku qosasho marka sheekada bilowgeeda waxaa ku qoran she was not amused kuma aysan madadaalan micnaha oo kuma aysan faraxsanayn waxay u sheegtay marka inaysan ku faraxsanayn sababtoo ah ma jeclaysan in aabaheed ay aragtay intaasoo kun oo qof uu ku qoslayso nuxurka marka meesha waxaan ka fahmaynaa in dhallaanka yararka ah sometimes ay ka murugoonayaan waalidiintooda ayagoo xataa ama xirfadooda ama skillkooda wataan ayaa sheekada ka fahmaynaa aad u mahadsantahay buugan bulshada weli ma soo bandhig wallaahi buuggii hore aan qoray bulshada u soo bandhigay oo meelo kala duwanba waa lagu daabacay laakiin buuggan hadda insha Allah mar dhow ayaan soo bandhigi doonaa oo aan daabacad ka sameyn doonaa waa daabacaddii koowaad waa waayahay waxaa jira dhalinyaro qorta buugaagta oo qoraanimadu ay tahay rabitaankooda ama hobigooda kuwaasoo afka Soomaaliga buugaagta ku qora si caadi ah adiga si gaar maxaa ugu dooratay in sheekooyinka aad bedesho Ingiriiska Soomaaliga ku bedesho waa su'aal muhiim ah Filsanay aad u mahadsan tahay waxaan ku doortay maadaama sida hadiyada hore aan kugu soo sheegayba markaan fiirshay baahiyaha faraha badan ee bulshada Soomaaliyeed u qabaan horta qofka qoraaga waxa la rabaa in wax kasta iska qorto lama rabo waa hub laba af la waaye oo qofka asagana dhibaatana uu isu gaarsiin karaa horumarna uu ku gaari karaa marka ujeedka aan ku doortay Ingiriiska waxa waaye oo af Ingiriiska aan ku turjumayo waxaan arkay baahiyo fara badan iyo caqabado fara badan inay ka jirto af Ingiriiska oo ardaydii markaas ay ku tahay caqabad weyn fahamkii af Ingiriiska sababta jirtan waxa waaye iskoolaadkii iyo jaamacadihii sidaan ka warhaynaba ku bixi maayaan af Soomaali ardayna marka waxa ku adag cashirka inuu fahmo because sababtoo ah maadadii waxay ku turjumaysaa ama ku baxaysaa af Ingiriis badi marka taaba anoo ka duulayo taas baa igu dhalisay in aan bulshada u faa'iideeyo oo aan u soo bandhigo taas baa igu dhalisay waayahay ciwaan kale ku jira rabaa inaan soo qabto oo la yiraahdo the need return ama soo laabashada meydka waa cashirka ugu dambeeyo oo 96aad isna wuxuu ka mid yahay quraafaadiyada gaarka ah ee la aaminsan yahay
wuxuu leeyahay cashirka marka xaflado waxaa jira loo qabto dadka meydka ah oo festival loo qabtaa jiro dadka dhintay sanadkii mar wadamanka oo Jabaanka oo kale dalka Jabaan sanadkii mar ay xaflad waxay u qabtaan dadka dhintay ujeedadana waxay leeyihiin meydka ayaa soo laabanayo qofkii dhintay markaas nalal ayaa darbiyada lagu xiraa iyo faynuusiyo kadibna waxa imaanaya in cunto loo diyaarsho dadka dhintay ayaa cunto loo diyaarinaa bas habeenkaas oo dhan waa la xaflad ayaa lagu jiraa oo waa la baashaalaya habeenkaas markii dadkii iska laabtaan marka dadku way laabanayaan leeyihiin faynuustii iyo cuntadii meesha lagu tagay ama la cunayo marka soo laabashada meydka ayaa loo yaqaanaa waa sheeko runtii aan isdhihi karo waa quraafaad ama waxyaabo aan waxba ka jirin marka sheekada meeshaas ayay ka hadlaysaa aronahay wayhay daawadayaal wali waxa la socotaan barnaamijkeena toddobaadlaha ah ee sahan oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho sahan ayaana kugu soo gudbinaa waxyaabo kala duwan oo la xiriira arrimaha bulshada oo dhanka horumarada iyo talaabooyinka dadka ay qaadaan ee hor u socodka toddobaadkan waxa igu martay Maxamed Ciise oo ah wiil dhalinyaro ah oo qoraayo oo buugaagta afka qalaad ama Ingiriisiga ku qoran u bedela af Soomaali oo barnaamijka la qayb galaya dib aan kugu soo laabto sidee u kala xulataa buugaagta afka Ingiriisiga ku qoran markaad inaad tarjunto aad go'aansato kadib filsani aad u maadsantahay wallahi waa su'aal aad muhiim u ah xulashada buugga horta waxay ku xiran tahay hadba manhajka wax ka qorayso iyo buugga isisaarkiisa grammar ahaan iyo in buuggaasi yani uu yahay in bulshada ay aqbali karto taabaan ku xushaa waxaan ka fiirinayaa buugga aan xulanayo kale tusaale ahaan in uu yahay buug yani bulshada wax faa'iido u leh teeda kalena waxaan ku xulanayaa in uu yahay mid simple ah oo la fahmi karo taabaan ku xushaa diiwaanada ku jira waxa kamid never told ama lagama duqoobo waxbarashada lagama duqoobo aad ama waxa waaye never told land waxa waaye qofka waxbarashada kama duqoobo waxa laga wadaa waxa jira nin oo macallin 40 sano ayuu iskool dhigayay markaas markii dambe xaflad ayuu qabtay inuu iskoolka ka fariisto shaqo retire ku dhacay ama shaqadu ka fariistay kadibna waxa dhacday marka wuxuu sameeyay dadkii ardadii hore iyo ardadii dambe isu yimid markay isu imaadeen ayay waxay dhaheen waxay u sameeyeen xaflad sagootin ah kadibna casho sagootina loo sameeyay marka cashadii iyo xafladii wixii dhan loo sameeyay ayaa wuxuu sameeyay in uu shaqadaas ka fariisto raba macallimada 40 sano ayuu ku soo jiray macnaha maamulo ayuu ahaa 40 sano ku soo jiray markaas kadib ayuu wuxuu bilaabay beerashada buug markuu wuxuu soo qaatay oo ay ku qoran tahay bilowga beerashada macnaha ama beginnerka marka wuxuu ka wadaa ardaydu ku dhiirigelinayay oo macnaha waxa laga wadaa waxbarashada hadaa macnaha meel barato inaad quusato lama rabay waxa la rabaa inaad hadana fiil kala bilowdo taas ay marka sheekadaas ka hadlaysaa aadiya isla ciwaanka la rabo inaan soo qabto ciwaanada maadaama buugga ay badan yihiin bal daawadayaashu wax badan ay ka ogaadaan aan doonayno si buugga ay xog fiican kaga helaan cold welcome ama soo dhaweynta aan fiicnayn sheekadaas waxaan u maleynaa waxay ka hadlaysaa sida ciwaanka ka garanaysaba yani waa soo dhaweyn aan wanaagsanayn ayay tahay cashirkeeda waxaan u maleynayaa waa cashirka 9aad wuxuu leeyahay marka soo dhaweyn aan fiicnayn habeennimadii Arbacada waxaynu aadnay hoolka magaalada waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee sanadka dad aad u far badan ayaa isugu soo ururay saacada ku taala hoolka magaalada hoosteeda 12kii waxaa dhinaa 20 daqiiqo 15 daqiiqo ayuu gudbay shakada waxay leedahay marka 12kii iyo oo 5 dhiman macnaha 12kii 5 dhiman saacadii way joogsatay markaas kadib waxa dhacay gacanka weyn ee daqiiqada sheegta ayaa macnaha dhaqaaq weys marka sheekada waxay si guud waxay ka hadlaysaa
yacni sheeg saacad ku dhagan darbigaas macnaha dadku way soo dhaweey weys saas ayay macnaha ay ku qotamaysaa waayahay kulli sheekooyinka ku jiray ka mid tahay buugga ishaadu ay qaban karto wallaahi horta waxaa iga soo laabtay in dad fara badan oo aan la soo koobi karin inay ka faa'iidaysteen sidaan filaayo dad fara badan ay gateen masha Allah ana ujeedkayga ma ahan ujeedkaygu dhaqaale ma ahan laakiin ujeedkaygu waxa waa in bulshada ummadda Soomaaliyeed inay u faa'iideeyo taas waa ujeedada ugu muhiimsan ama ujeedka aan leeyahay caadi qaybaha dambe ee barnaamijkan waa isla maraynaa ciwaanka ugu dambeeyay rabeyna wax ka weydiiyo waa clear consistency ama damiir saafi ah ciwaankaasi sheekadaasi iyana maxay taabanaysaa oo ka hadlaysaa sheekada waxa waaye waxay ka hadlaysaa damiir saafi ama clear consistency waxa laga wadaa yani waa sheeko aad u cajiib ah runtii nin baa lacag ka dhuntay marka ninkii markii lacagta ka dhuntay lacag aad u fara badan ka dhuntay markii lacagta ka dhuntay ninkii lacagta ka qaatay ayaa wuxuu sameeyay dhowr bilood kadib ayuu lacagtii wuxuu u keenay boqolkiiba 25 ayuu u keenay markaas wuxuu dhahay 75 ayaan tuug ahay warqada u soo qoray lacagtii qaar u soo celishay macnaha intaasaan tuug ahay u dhahay 75% ayaa tuug ahay haddana lacagtii muddo ku shaqeeyay haddana 25 kale u soo celisay haddana lacagtii muddo kale warqada u soo qoraa macnaha waa u keenaa iridis u soo dhigaa markii dambe sida uu yareeynayay ayuu wuxuu dhahay hadirtaan 100% daacada ah macnaha 100% daacada sheekada macnaha marka damiir saafi asaas laga wadaa macnaha inkastoo ay safiicneen haddana wuxuu sameeyay wixina uu qaatay una soo celiyay laakiin wuxuu soo celiyay qaab oo farsamo ah aadiya waayahay kulay su'aasha ugu dambaysa rabeyna ku weydiiyo maxaad hiigsanaysaa leedahay bal buugaagtan hadda aad bedelaysay afka Ingiriisiga ku qoran Soomaaliga u bedelaysay ka gaar maxaa ku muuqdo aad leedahay allay leh hore ugu soo والله في السنة waa su'aal aad muhiim u ah waxa hiigsanayaa insha Allah in aan ka gaaro meel la taaban kara oo runtii tangible ah taasna waxay u baahan tahay hadda af lama rabe juhdi iyo dadaal fara badan iyo soo jeed fara badan in qofka uu wax badan akhriyo iyo inuu wax badan qoro taabay ku soo horgelaysaa marka insha Allah waxaan rabaa inaan heer la taaban karo oo taariikhda inaan baalka galan doonaya insha Allah arrintaas way aad ma san tahay oo ku mahadnaqaynaa ka qaybgalkaaga barnaamijka aad ma san tahay adiga mudan hagaag daawadayaal guud ahaanba toddobaadkan barnaamijkeena sahan ee aad ka daawanayseen bisha February waa naga intaas barnaamijka waxa soo saartay idin la socodsiinaysa anigoo filsan duceysana waxa igala qayb galay Maxamed Ciise Maxamuud oo ah wiil dhalinyaro qoray buug afka Ingiriisiga ku qornaa oo u bedelay af Soomaaliga isla markaana dhanka luqadda Soomaaliga uu ku bedelay uguna talagalay in dhalinyarada Soomaalida ay ka faa'iideystaan dhanka luqadda iyo xoojinteeda barnaamijka intaas ayuu nooga yahay toddobaadkan dhanka farsamada waa kaamirada waxaan kaga mahadnaqayaa Farax Zubayri Cabduqaadir Iska toddobaad kale iyo barnaamijka la caynatay dib ugu kulmi doono oo bahdiisaan oo isku duuban oo idin sidaas iyo nabadgelyo